وسوق وين مقالة قالكاية حرنت قبل كمدق waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga ciidul fidriga maadaama lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan ganacsatada suuqyada waaweyn ee dharka iyo kabaha oo wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqa suuqa ayaa waxay ka dareen hadleen sida wanaagsan ee ganacsigu u socdo suuq aad buu wacan yahay xaqan maalintan aad buu fiican tahay waxa gadashada galinka dambe hadda aad buu fiican dadku aad buu mashquul yahay Ramadaanku wuxuu marayaa maalmihii ugu dambeeyay uu marayaa إلهي waxaan ka rajaynaynaa in khayr uu noogu dhameeyo farxadeeda bisha barakeysan ee Ramadaan waxa weeyaan ma sha Allah xilli ciidan ku jirnaa ciidana si fiican baan ugu diyaar garoonay si fiican bayna socotaa bulshada reer galka si fiican ay u adeeganayaan maxaa ciidan waxaan rajaynaynaa ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland iyo gaar ahaan kuwa reer galka iyo gobolka mudug ahaan waxaan u rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo iyo muxuu ahaay tawanaag waxaan ilaahay ka baryaynaa in ciidda ilaahay nabad iyo amni noogu dhameystiro ciid wallahi aad baan dabeena xamaasadeed aad baan dareemayaa si sharaf leh maadaama aan ganacsada ahay xagga ganacsiga aan ku jiro waxaan ka dareemayaa dhaqaaq wanaagsan baan uga dareemayaa dhalinta ayaa laga dareemayaa farxadda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin u diyaar garowga ciidda barakeysan ee Ciidul Fidriga ما شاء الله dadka Soomaalida iyo Muslimiinta waxa uu bishaaraya ciidii soo dhawaatay maanta waxa halkaan ugu muuqata dad badan u diyaar garoobay ciida waa faraxsanahay macana kashkii laafta waa ka faraxsanahay maanta hadaa ciid noo soo dhawahay dadka suuqa waska oo ka zahmaan ciida ayaa si isku wada mid ah u diyaar garowgeeda looga dareemayaa dhammaan suuqyada waaweyn ee magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug markii aad sii dhex qaado suuqyada waxaad arkaysaa meelo badan oo waxyaalo kala duwan lagu gadayo sida qalabka ay carruurtu ku ciyaaraan diyaar garowga ciidul fidriga loo yaqaan ayaa waxa laga dareemayaa guud ahaan caalamka islaamka gaar ahaan magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug meelaha xarumaha lagu ganacsado marka aad fiiriso ayaa waxa ka dareemaysaa mashquul aad u badan kaasoo lagu wada jiro sidii ciidul fidriga loogu diyaar garoobi lahaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxay u diyaar garoobayaan sida dharka wadooyinka ay iska bixin lahayn ciidul fidriga kuwaasoo mashquul badan laga dareemayo goobaha ganacsiga sida carwooyinka iyo meelaha kale oo bulshada isugu timaado suuqyada waaweyn ee magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa waxa arkaysaa iyadoo dadku aad u shaqaysan yihiin jidadka waaweyn ee Suudaan maro waxyaabo ka bacdi ayaa la filayaa in ciidda barakeysan Ciidul Fidriga loo dabaaldego dhammaan TV iyo raadiyaasha Gaalkacyo